qaar ka mid ah haweenka jahliyadda ka soo jeeda magaalada buuhoodle kuna dhaqan magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa maanta deeq lacageed gaarsiiyay qoysas danyar ah oo isugu jira agoomaha dad waayeel ah iyo waliba barakacyaal ku dhaqan magaalada buuhoodle xarunta gobolka Cayn. deeqdani ay hablaha ku dhaqan magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ay soo gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada buuhoodle ayaa dhammayd $1,000 oo Mareykanka ah waxaana loo qaybiyay qoysas tiradooda lagu sheegay ilaa 30 qoys. deeqdani maanta dadka ka kooban 30 qoys ayaa waxaa loogu qaybiyay xaafadaha waqooyi ee magaalada buuhoodle. cabdicasiis sheekh fakar oo deeqdaasi lagu soo hagaajiyay isla markaana dadka gaarsiiyay ayaa sheegay inay gaarsiiyeen dadkii loogu talagalay deeqdaasi. deeqdan waxay soo gaarsiiyay lacagta tirada waxay ahayd marka qarashka awlaadii qarashka laga saaro sabab qolkii lacagta loo qaybinay dadka loo qaybinayna waa 30 qoys waxay soo gaarsiiyay gabdho reer buuhoodle oo reer Canada. qaar ka mid ah dadka deeqda la gaarsiiyay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo u mahad celiyay dadkii deeqdani soo baxsaday iyo sidoo kale kuwa ugu soo hagaajiyeenba. anigoo ku hadlaya dadka kan magaranaysa la soo gaarsiiyay hawsha iyo daaladma mucaawimada waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u gargaaro inuu ilaahay siiyo muslim iyo mushrik iyo munaafiq iyo dadka ay la joogaan ay la nool yihiin sharkooda ilaahay inuu ka nabadgeliyo khayrkoodana ilaahay inuu siiyo. waa ugu mahadnaqaynaa ilaahay ha garab galo kuwa noo keenay iyo kuwa ka soo diray iyo kuwa nasiyayba ilaahay ha garab galo insha Allah bidmillaahi kariim waxsan iyo khayr ayaan u rajaynaynaa idamka ilaahay anana Allah nagu anfaco iyagana Allahna ha ugu dambi dhaafo risqa Allah ugu kordhiyo Allah kaga qabto cadowgoodan Allah kaga xayiro. marka la isku soo wada duubo dadka deeqdan la gaarsiiyay si weyn u soo dhaweeyay isla markaana u mahad celiyay walaalahooda ku dhaqan magaalada Windsor ee dalkaasi Canada gaar ahaan gobolka Ontario waxayna ugu baaqeen inay mar waliba u joogteeyaan deeqdani oo aysan intaasi ku ekayn. khadar cawl ismaaciil Universal TV buuhoodle.